xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay war ka soo saareen xaaladda siyaasadeed ee dalka. Xildhibaanadan oo gaaraya ku dhawaad 100 iyo dhowr xildhibaan oo ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ayaa waxa ay sheegeen in warkoodan ay soo saareen kadib markii sida ay tilmaameen ay arkeen xaaladda halista ah ee dalku uu ku jiro iyo caqabado culus oo ay sheegeen in xilligan dalku uu wajahayo. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayay sheegeen in uu garowsan waayay marxaladda adag ee dalku uu ku jiro uuna ka baxay ballanqaadkiisii 29 Maarso 2025 ee ahaa inuu isu keenayo madaxda kala aragtida duwan iyo hoggaanka dhaqanka isla markaana uu martigelin doono gogol qaran. xildhibaanada ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku guuldareystay in uu muujiyo xilkasnimo hoggaamineed oo uu ku wajahayo xaaladda degdegga ah ee uu dalku ku jiro, taa beddelkeedana uu door biday dan shakhsi ah, kooxaysi siyaasadeed iyo tillaabooyin sii kala fogeynaya dadka, iyo sidoo kale isku day in dalka dib loogu celiyo nidaamkii halka xisbi oo horey loogu soo khasaaray, ayay yidhaahdeen xildhibaanadan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee warka soo saaray. xildhibaanada ayaa sheegay in ay arkeen in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu gebi ahaanba uu meesha ka saaray kala madax bannaanidii hay'adaha dowladda ee is-xisaabinta isku lahaa, uuna u xubsiibtay kalitalisnimo ku tagrifal awoodeed, boob hantida danta guud, musuqmaasuq, maamul xumo, faquuqid siyaasadeed, cadaalad darro iyo sidoo kale kala geynta ummadda Soomaaliyeed sida ay hadalka u dhigeen. xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa waxa ay soo saareen dhowr qodob oo ay kaga hadlayaan xaaladda dalka. qodobadaas waxaa ka mid ah: waxaan kula talinaynaa inuu si degdeg ah uu ugu soo laabto dariiqii sharciga ahaa uuna u guda galo wadatashi siyaasadeed oo isugu imaanayaan saamiilayda siyaasadeed ee ay qusayso talada dalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, si dalka markaasi looga samata bixiyo bay yidhaahdeen burbur dowladeed, kana laabto qalalaasaha uu geliyey dastuurkii heshiiska lagu wada ahaa nidaamkii federaalka iyo awood qaybsiga siyaasadeed ee saldhigga u ahaa xasiloonida dalka, loona abuuro cudud midaysan oo looga hortegayo kooxaha argagixisada ah. waxaan u soo jeedinaynaa madaxweynaha in uu ka waantoobo ficilada lidka ku ah dastuurka, kala qaybinta iyo colaadda uu ugu durbaantumanayo maamulka Jubbaland, joojiyana xayiraadka qaadista iyo afduubka siyaasadeed ee uu adeegsanayo hantida qaranka iyo xilalka dowladda. xildhibaanadan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ayaa sidoo kale qoraalkooda waxa ay ku yidhaahdeen: waxaan caddaynaynaa in madaxweynuhu uu si bareer ah u burburiyey madashii wadatashiga qaranka kadib markii uu horay ula dagaalay Puntland iyo Jubbaland, intii soo hartayna uu ku qasbay in xisbigiisa xubno ay ka noqdaan. sidaa daraaddeed waxaan u soo jeedinaynaa inuu ku laabto hannaankii heshiiska lagu wada ahaa ee saldhigga u ahaa dowlad dhiska Soomaaliya. waxaan sidoo kale caddaynaynaa go'aamadii siyaasadeed ee qaar ka mid ah golaha wadatashiga qaranku ay gaareen in dhammaan ay yihiin go'aanno hal urur siyaasadeed uu gaaray. waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo boobka iyo barakicinta lagu hayo shacabka Soomaaliyeed. haddii dhul dowladeed loo baahdana loo maro hannaanka sharciga ah ee uu tilmaamayo sharciga dalka. haddii uusan madaxweynuhu qaadanin soo jeedintan si degdeg ahna dariiqa sharciga ah uusan ugu soo noqonin, waxaan u soo jeedinaynaa inuu xilka madaxweynenimo uu iska casilo si dalka uu u badbaado. ugu dambeyn, xildhibaanadan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ayaa war-saxaafadeedkooda waxay ku yidhaahdeen: waxaan soo dhoweynaynaa doorka garab istaagga shacabka iyo dowlad dhiska Soomaaliyeed ee ay qaadatay dowladda Maraykanka ee ah in si cad ay u diiday talada aan loo dhammayn ee madaxweynaha. waxaanan markaasi ku boorinaynaa saaxiibada kale ee beesha caalamka in ay sidoo kale ay ka soo horjeestaan tala siyaasadeed kasta oo aan loo dhammayn oo horseedi karta dib u noqosho. ugu dambeyn, waxaan uga mahadcelinaynaa beesha caalamka kaalinta taageero ee ay la garab taagan tahay dowladda Soomaaliya. ugu dambeyn, waxaan u mahadcelinaynaa beesha caalamka kaalinta taageero ee ay la garab taagan yihiin dowlad dhiska Soomaaliya. waxaan u soo jeedinaynaa haddii ay soo jeedinta xildhibaanadan uu iska dhigatiro madaxweynuhu in ay garab siiyaan inta u taagan badbaadinta dowladnimada Soomaaliya. ilaa 102 xildhibaan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ayaana lagu qoray magacyada warqadan uu ku qoran yahay war-saxaafadeedka xildhibaanadu ay soo saareen. Maxamed Ido, Universal TV, Muqdisho.